haddii dunida qofna uusan dhiman lahayn maxaa dhici lahaa? qof walba maanta waxa uu u nool yahay sida in uusan dhimanayn oo kale. haddii dadka aan weydiino su'aal ah yaa diyaar u ah inuu dhinto, waxay u badan tahay in qof walba waqti xaadirkan dhimashada degdeg uusan u qabin. sida ay tahay qof walba waxa uu xiiseynayaa inaanan la dhiman ee weligeed la noolaado. haddaba sidaas oo kale haddii ay dhici lahayd ee la noolaan lahaa, dunidu maxaa ka dhici lahaa? muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa waxyaabaha laga yaabo haddii dadka oo dhan aysan dhiman lahayn waxa dunida ka dhici lahaa. haddii aad ka hesho muuqaalada noocan oo kale ah, like saar si aan kuu aragno. mahadsanid. dunidu maalin walba waxaa ku dhimata 150,000 oo qof ah. tanina waxa ay la micno tahay in second walba uu dhinto 2 qofood. muuqaalkan xilligii afurtay ilaa hadda waxaa qiyaas ahaan dunida ku dhimatay 20 qof ah iyo ka sii badanba. haddii aan ka soo qaadno in dadka dunidu aysan dhiman lahayn, si degdeg ah waxa u kordhi lahaa tirada dadka. sida statisticsku ay sheegayaan, dunidu waxaa maalin walba ku soo biira 360,000 oo canug ah. haddii sidani dunida ay u sii socon lahayd, isbeddel cajiib ah ayaa dhulka ka dhici lahaa. si kasta oo sanadaha ugu horeeya aan caadi ugu arki lahayn, haddana sanado kadib culayskeedu aad ayaan u dareemi lahayn. bilowgiiba waxaa shaqo la'aan xoog badan soo wajihi lahayd dadka ka shaqeeya qodista qabriyada, kanfanista meydka iyo kuwa naxash ka sameeya. sidoo kale waxaa dhib badan uu soo wajihi lahaa dadka cudurrada dilaaga qaba, waxayna sabab u noqon lahayd in weligooda hosbitaalku ay dhex jiifaan cudurrada xanuunka ee dilaaga ahna la sii silcaan. waxaana tani u sii dheer in lacaga joogto ah weligoodu ay iska bixiyaan. dhanka kale waxaa aad u badan lahaa doodaha iyo dagaalada. tanina waxa ay sabab u noqon lahayd maadaama aan la dhimanin in maalin walba malaayiin dad ah ay ku dhaawacmaan. sidaas oo kalena hosbitaaladu waxa ay noqon lahayn kuwa aad u buuxdhaafiya dad, waxayna gaarin lahaayeen xaalad ay qaabili waayaan bukaan oo dhan. sidoo kale waxaa dunida ka dhici lahaa sicir barar xoogan oo waxaa si degdeg ah ku dhammaan lahaa khayraadka dunida. waxaa la weyn lahaa wax la cuno iyo sidoo kale meel la dego. tanina waxa ay sabab u noqon lahayd in meelaha lamadegaanada ah laga dhiso guryo si dadku ay u degaan. sidoo kalena waxaa kordhi lahaa shaqo la'aanta. dadka intooda badan ma aysan heli lahayn wax shaqo ah. haddii wax shaqo ah aysan helinna, waxa ay noqon lahaayeen kuwo guur la'aan ah. tanina waxay la micno tahay nabad la'aan xoog badan ayaa dhulka ka dhici lahayd. meel walba iyo goob walbana waa la dumin lahaa, sidoo kalena waa la gubi lahaa. waddamada aadka u yar dadkoodu waxa ay bilaabi lahaayeen dadka aan guryaha haysan in waddamada kale dhulalkoodu xoog ay ku qabsadaan ama ay degaan. tanina dowladaha dhexdooda dagaal xoogan inuu ka dhex qarxo ayay sabab u noqon lahayd. waxaa sidoo kale oo laga yaabaa haddii xaalad ay sidaasi ku sii socoto in dowladuhu ay bilaabi lahaayeen qaab ay uga hortagaan dhalmada. waxaa suuragal ah in dowladuhu ay ballanqaadi iyo abaalmarino ay u samayn lahaayeen lamaane walba ee aan waxba dhalin. haddii dhinac kale oo wanaag ah aan ka fiirnana, waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka aan soo sheegnay cagsigeeda wax wanaag ah inuu dhaco, sida in cirfyada dunida ee aan lagu noolayn in la bilaabo in lagu noolaado. xitaa waxaa dhici karta in buuraha aan lagu noolaan in lagu dul noolaado. waxaa kale oo laga yaabaa in tiknoolajiyo horumarsan oo casri ah la bilaabo in la soo saaro. waxyaabahan aan kuu soo sheegay oo dhan, maadaama ixtimaal qiyaas ah wax ku dhisan ay yihiin, adigu maxay kula tahay haddii dadka dunida oo dhan aysan dhiman lahayn? hoos inoogu soo qor sida ay kula tahay.